tirada dadka ku dhintay dhismo kusoo dumay koonfurta galbeed ee gobolka Khuzestan ee dalka Iiraan ayaa gaartay ugu yaraan 22 qof halka 48 qof laga soo badbaadiyay burburka dhismahaasi. Ihsaan Abbasubur oo ah gudoomiyaha magaalada Abadan ayaa Jimcaha maanta u sheegay TV-ga dowladda Iiraan in tirada dadka ku dhaawacmay burburka xarun ganacsi oo ka kooban 10 dabaq oo dhismo laga waday ay gaartay 37 qof. Waxaa socda dadaalo lagu samata bixinayo dadka weli ku hoos jira dhismihii ku dumay magaalada Abadan Isniintii, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan hay'adda bisha cas ee deegaanka. In ka badan 150 qof ayaa la sheegay inay ku jiraan gudaha dhismaha ganacsi ee Metropole ee ku yaala wadada mashquulka badan ee Amiri markii uu dumayay. Mohamed Hassan Nami oo ah gudoomiyaha ururka maareynta xasaradaha ayaa warbaahinta u sheegay Talaadadii in ay daadgureeyaan dhammaan dhismayaasha ku dhow oo halis ugu jira inay dumaan. Dhanka kale, tirada dadka xabsiga loo taxaabay oo baaritaan lagu sameynayo dhacdadan ayaa gaartay 11 qof sida uu sheegay xeer ilaalinta guud ee gobolka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa ku eedeeyay dalalka reer galbeedka in ay dagaal guud ku hayaan Ruushka, dadkiisa iyo dhaqankiisa, xilli Moscow ay sii wado howlgalkeeda militari ee Ukraine. Reer galbeedku waxay ku dhawaaqeen dagaal nagu soo wajahan dhammaan dunida Ruushka, dhaqanka baabi'inta Ruushka iyo wax kasta oo ku xiran dalkeena waxay mar hore gaareen heer aan macquul ahayn. Lavrov ayaa ka sheegay shir wasaaraded waxa uu ku eedeeyay reer galbeedka in ay mamnuuceen qorayaasha Ruushka, hal abuurayaasha iyo dadka kale ee dhaqanka. Fikradda istiraatiijiyadeed ee cusub ee NATO waa in ay ku jirtaa go'aan ka dhan ah la dagaalanka dhammaan noocyada argagixisnimada, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Mevlut Cavusoglu oo shir jaraa'id si wadajir ah ula qabtay dhigiisa Romania iyo Poland kadib shir saddex geesood ah oo Jimcihii dhacay ayaa sheegay in Sweden iyo Finland ay joojiyaan taageeradooda argagixisada haddii ay doonayaan inay ku biiraan NATO. Cavusoglu wuxuu sheegay in mowqifka Turkiga ee dalabaadka NATO ee labada wadan uu yahay mid cad oo aan mugdi ku jirin. Waxaan rajaynaynaa in Finland iyo Sweden ay fahmaan fariimaheena, ayuu raaciyay. Dalalka Sweden iyo Finland ayaa toddobaadkii hore si rasmi ah u codsaday in ay ku biiraan NATO, go'aankaas oo uu ka dambeeyay duulaankii militariga Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine kaasoo bilowday 24 bishii February. Cavusoglu ayaa hore u sheegay in Turkiga uu mar walba taageersan yahay fikradda ballaarinta NATO, laakiin ay walaac ka qabto Finland iyo rabitaanka Sweden ee ah inay ku biiraan isbahaysiga marka loo eego xiriirka ay la leeyihiin kooxaha argagixisada. Turkiga oo ah xubin muddo dheer ka tirsan NATO ayaa ku dhaleeceeyay wadamada waqooyiga Yurub inay taageeraan kooxaha argagixisada. Kooxahan waxaa ka mid ah PKK oo urur argagixiso ay u aqoonsadeen Mareykanka, Turkiga iyo EU, YPG garabka Suuriya iyo Fethullah Terrorist Organization FETÖ kooxda ka dambeysay afgembigii laga adkaaday ee 2016 ka dhacay Turkiga. Ankara ayaa Arbacadii martigelisay wadatashiyo ee la yeelatay wafuud ka kala socotay Sweden iyo Finland oo ku saabsan codsiyadooda NATO. Sida laga soo xigtay afhayeenka madaxtooyada Ibrahim Kalin, wadamada waqooyiga Yurub waxaa lagu wargeliyay in ay dalabkooda NATO uusan horumari karin ilaa walaaca amniga ee Turkiga wax looga qabto tillaabooyin la taaban karo iyo waqti go'an. Hogaamiyaasha reer galbeedka ayaa kalsooni ka muujiyay in walaaca Ankara wax laga qaban doono. Wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa ku eedeysay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken in uu xumeeyay dalka isaga oo ka jawaabaya hadalka sarkaalka Mareykanka ah ee ku baaqayay in la qaado tallaabo lagaga hortagayo saameynta Beijing. Beijing ayaa si carar leh u weerartay khudbaddii Jimcihii, waxayna sheegtay in ay faafinayso macluumaad been abuur ah ay buunbuunisay khatarta Shiinaha, faragelina ay ku tahay arrimaha gudaha iyo dibadda ee Shiinaha. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Wang Wenbin ayaa sheegay in Shiinuhu si adag ugu soo horjeesteen hadalka, waxayna taasi muujinaysaa in Washington ay doonayso inay xakameyso horumarka Shiinaha oo ay ilaaliso haybadda iyo awoodda Mareykanka. Khudbaddii Khamiista ee Blinken wuxuu ka digay ujeedada Shiinaha ee ah inay dib u qaabeeyeen nidaamka caalamiga ah isagoo ugu baaqay wadamada inay difaacaan xaaladda hadda jirta. Waxa uu sidoo kale ku eedeeyay Beijing inay sare u qaadayso xiisadda Taiwan, wuxuuna sheegay in Beijing ay jartay xiriirka Taiwan ay la leedahay dalalka adduunka oo ay ka hor istaagtay ka qaybgalka ururada caalamiga ah. Ciidamada Israa'iil ayaa toogasho ku dilay wiil dhalinyaro ah oo Falastiin ah meel u dhow magaalada Beytlahem ee dhulka la haysto ee daanta galbeed, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Falastiin. Sayid Maxamed Khuneim ayaa laga toogtay dhabarka iyo qoorta wuxuuna ku dhintay cisbitaalka Jimcihii. Bayaan ay soo saartay wasaaradda ayaa laga sheegay maanta. Xiriiro ay la sameysay wakaaladda wararka ee AFP, ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in aysan isla markiiba awoodin in ay ka hadlaan arrintan. Dhimashada ayaa kor u qaadaysa tirada dhalinyarada Falastiiniyiinta ah ee lagu dilay howlgallada ee ciidamada Israa'iil
ka wadaan daanta galbeed muddo bil gudaheed ah. Mar sii horeysay ciidamada Israa'iil ayaa ku dhaawacay ku dhowaad 90 qof mudaharaadyo ka dhacay daanta galbeed ee la haysto sida ay sheegtay ururka Bisha Cas ee Falastiin. Ugu yaraan hal qof oo Falastiini ah ayaa laga toogtay lugta waxaana loo qaaday isbitaalka Jimcihii halka kuwa kalena ay ka soo gaareen dhaawacyo ka soo gaaray bambooyinka, rasaasta cinjirka ah iyo sunta dadka ka ilmaysiisa, ayuu warka intaas ku daray. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin ayaa soo saartay bayaan ay ku cambaareynayso caburunta Israa'iil iyadoo sheegtay in dadka deegaanka ay ku mudaharaadayaan ballaarinta deegaameynta Yuhuudda iyo haysashada sharci darrada ah ee dhulka Falastiin. Iska hormaadkii ugu xumaa ayaa ka dhacay bartamaha daanta galbeed ee magaalada Huwara una dhow magaalada Nablus.